wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan war weyn oo kasoo kordhay howlgalladii ciidamada ice ay ka wadeen magaalada minneapolis iyo guud ahaan gobolka oo dhan ayaa haatan cirka isku shareeray. waxaa barnaamijka murti igu ah wariyaha weyn ee ruucadaagaan u baahnayn xaqiiqatan leskiin bara muddo dheer ummadda soomaaliyeed usoo shaqaynaysa saare cabdi axmed oo haatan life ugu jirta khadka. sahre soo dhawow, maxaa soo kordhay? waad mahadsan tahay cabdixaafid. waxaa soo korortay in meelaha qaarkood magaalada minneapolis waa labada magaalood ee mataanaha ah ee minnesota ka wada tirsan ee minneapolis iyo st paul cabsi xoogan ee durbaba soo food saartay jaaliyadda kadib markii sida ay maxkamadii ogolaatay maxkamad heer federaal oo gobolkaasi ah heer gobol ah in ay ciidamada iceta gudaha u geli karaan goobaha ganacsiga oo ay ka mid yihiin suuqyada waaweyn ee carmel iyo 24ka halkaasi oo ay ka ugaarsan karaan ama ay ka qabsan karaan dadka ay rabaan. awal waxaa adkeed in ay si sahlan intay gudaha u galaan meelahaasi ay dadka la hadli kareen oo waayo maysa haysan ruqsadda ay maaragtay ku xiri karaan qof, laakiin hadda authority ayay u leeyihiin oo awood ayay u haystaan inay gudaha geli karaan suuqyadaas, goobaha ganacsiga, maqaayadaha ay ka mid yihiin, guryaha ay ka mid yihiin, masaajidada. marka dadka qaarkood jaaliyadda cabsi xoogan ayaa soo food saarto arrintaas ku salaysan. markii hore waxaynu ogeyn in aysan soo geli karin meelaha laga dukaamaysto iyo dadka guryaha ah. haatan haddii ay maxkamad idan ay ka haystaan arrintu cirkay isku sii shareeraysaa soo ma? aad iyo aad. awal waxaa jirtay in maaragtay gudaha moolasha hadday dhallinyarada ku jiraan waxa ugu badan oo hadda aad loo hadalhayo waxay tahay dhallinyarada darbika boodka ah ee soomaaliya dhowaantan ka tegay oo minnesota ku badnaa waayadan oo cabsida xoogan ay haysata ayagii eheladooda. marka dadka awal waxaa la dhihi jiray hadduu qofka guriga ku jiro ama maqaayad uu ku jiro ama uu ku jiro goob kaloo ganacsi ama suuqyadaas uu joogo iskamaysan sahlaneyn in gudaha loo geli karo goobahaasi. oo xala ugu dambeysay ilaa iyo shalay waxay sheegayeen mas-uuliyiinta carmel suuqan la yiraahdo suuqa ugu weyn ah minneapolis oo soomaalidu hadda ay degan yihiin oo 600 oo dukaamo ay ku yaalaan in ka badan. waxa ay sheegayeen in dadka gudaha aan loogu soo geli karin oo ay imaadaan ay shaqaystaan waxay doonaan ay ka cunaan ay moolasha aysan cidleynin. laakiin hadda ogolaanshiyahan ruqsad oo maanta ay heleen ice waxay ka dhigaysaa gudaha inay u geli karaan goobta shaqada ay tegi karaan, weydiin karaan qofka u shaqeeya sharciga ay baaritaan ku samayn karaan isla markaasina halkaas hadday rabaan ay ka xiri karaan dadka. daawadayaal haddii aad doonaysa barnaamijyo tayadooda sarreyso iyo wararkii ugu dambeeyey maraykanka iyo caalamka sahra waxay noo furtay channel cusub Somali coverage la yiraahdo. fadlan oo cimaamada ayadoo dabcan nama weydiisanin hawshay noo haysaa nagu filan kuyaaca oo kala kiciya haddii la yirahdo waa luqadii dhalinyarada kala kiciya kuyaaca. wayahay sahro, arrintaanu dabcan kaftanka markaan ka dayno waa arrin halisteeda wadata. meel ka caagan ama aysan geli karinina haatan ma jirto. miyaanu u qaadanaynaa go-aankan maxkamadda? aad iyo aad. xilli weliba ciidamada madaxweynaha uu amray ee lagu daadiyey gobolkaasi ay tiro aad u badan yihiin kuwa aysta hadday noqoto sidoo kaleto FBI da meelaha qaarkood lagu sheegayo hadday noqoto ciidamada militariga meelaha qaarkood la sheegay inay caawin doonaan oo xoojin doonaan. waxaa jirto dhinaca kaleeto cabsida dadka ay qabaan marka laga soo tago ice ayaga xataa gobolka la geeyey laftooda cabsi ayaa ka muuqatay kuu sheegayaan wejiyada ayaa u xiran, baabuurtooda meelo fogfog ayay soo dhiganayaan. dadkay awal waxay kala kulmayeen cadaadis xoogan maadaama warqadihii ruqsada ay qofka ku xiri lahaayeen aysan wadanin. markay aaga soo istaagaan dadka waxay bilaabayaan inay duubaan markay arkaan in muuqaalo laga duubayo ama ayagii lagu sii jeedo la fiirinayo baabuurtoodii ayaga aan laga leexanaynin way iska tegi jireen way iska baxayeen maalmihii ugu dambeysay 2 cisho ugu dambeysay. laakiin wixii hadda ka dambeeyo xaaladda inay isbedeli karto ayay dadku saadaalinayaan. allaha fududeeyo saqiro dhinac laakiin inay adagtahay sheegayaan jaaliyadda soomaalida halkaas. qaarkood ayaa dhahaya xataa waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada inay guryaha ku ekaadaan maadaama maaragtay dhibaato ay soo wajihi karto oo kaleeto.
marka arrintan waxay saameyn xoogan ku yeelanaysaa dhalinyaradii dhowaan soo gashay waddankan maraykanka ee sharciyada sugayay ee qaarkood broceska waxa la xiriira inta uu socday barnaamijyada ogolaanshiyaha ama diidmadooda guryaha iska joogay shaqaysanayay oo maaragtay ama uu berlada ahaa baawurada waday ama liftiga waday ama maqaayadaha ka shaqaynaya ama xataa dukaamadan 600 oo dukaan kuu sheegay oo ku yaala Carmel ka howlgalaya marka dhinac walba u saameynaysaa hadda marka nolosha dadka arrintan waa culays hor leh waayahay garanay goobaha laga dukaamaysiya xarumaha waaweyn in hadda loo siiyey idan in ay markaas ay dadka ka ugaarsadaan haddii aynu intaa ka tagno guryaha ayagama soo geli karaan mise guryuhu weli inay idan haystaan baa loo baahan yahay hadda si gaara waxa farta loogu fiiqay oo loo sheegay in xaakinkan u ogolaado waxay tahay in uu tegi karaan labada mool ee ugu waaweyn ee Soomaalida ay ku leeyihiin Minneapolis oo ah 24ka iyo Carmel iyo sidoo kaleeto maqaayadda hadda dhawaantan la furay laakiin sida weyn ee dhalinyarada Soomaalida u camiri jireen Zawaadi la yiraahdo kuwaasoo xataa maamuladooda xalay iyo shalayto shirar ay qabteen ay ku sheegayeen dadka inay yimaadaan ka dukaameystaan kusoo noqdaan goobihii ganacsiga wax dhibaato aysan jirin warqadana ayagoon u haysan ice aysan soo geli karin macnaha awal si furan ayay u diideen maamulada meelahan in aysan soo gelin ice dukaamadoodii goobahooda ganacsiga maadaama aysan haysanin ruqsadda dad ay uga dhex qaban karaan ama uga dhex xiri karaan waayahay haddii aynu eegno ka waran ayaga masaajidada waa la mid meelaha sidoo kaleeto culimmada ay ka hadlaysay ka mid yihiin laakiinse meel walbay ahaataba xataa haddii hadda gurigaaga lagugu soo gelayo sharciga maraykanka ayaa dhigayo qofka la rabo in la xiro ama loo imaaday ama boolisku ay rabaan inay wataan waa in ay wataan warqado ama warqada ruqsada qofkaas lagu soo qaban karo haddii warranty uusan gacanta ku wadanin waxaa lagu dhihi karaa albaabkaaga ha ka furin waa diidi kartaa waxaan u baahana warqada warrantiga ugu xiraysid inaad dhahdid xaqa u leedahay marka guud ahaan waa wax saameynaya maadaama ay sharci tahay arrintan laakiinse howlgallo waxay noqonayaan dabcan oo ku cusub gobolka ka xoogan sidii horeeto in la ogolaado xataa goobahan in la tegi karo maxkamaddu ay ogolaatana waa arrin cabsideeda le dhinaca kaleeto walwal intee leeg ayaa hayad bulshada Soomaaliyeed waxaynu arkaynay dad sharciloo la qabanayay maalin waxaan aragnay gabar Soomaaliyeed oo 24 saac ay haystaan ninkeedu baasaboorkeedii uu keenay niman dhalinyarada dariiqa lagu istaajiyey haatan waxaan arkaynay Rochester sidoo kale in Soomaali laga qabtay bal cabsi iyo walwal intee leeg ayaa soo food saaray kuwa sharciga leh iyo kuwan lahaynba dabcan qof kasto markii dhiilo ama dhibaato la sheego cabsideeda way saameynaysaa gaar ahaan haddii la dhaho dadkaas gaarka ku lug leedahay ama gobolkaas gaarka ah haddii aagaaga meel ka dhow ay tahay yes gaar ahaan dhalinyarada aan haysan sharciyada ee waddankan dhowaantan soo galay waxay ku ahaayeen waddanka kuwa ku shaqaysto waxaa jirta saad la socotidbo dad kale fara badan oo sharcigii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu meesha ka bixin doono TPS-ka ku shaqaysanayay oo sharciyada hadday noqoto deganaanshiyaha iyo kan dhalashay Maraykanka aan haysanin waxaa jira dad kaleeto ayaga laftirkooda xukun sugayaal iska ahaa oo sharciyadii loo diido hore loogu diido go'aamo maxkamada ay ka gaareen laakiin iska jooga iska shaqaysanayay dadkan qaarkood waxaa cajiib la gaar ahaan kuwa TPS oo kaleeto inay abuurteen noloshooda halkan oo qaarkood guryo ay lahaayeen qaarkood ilmo inta ku dhaldhaleen ilmahooda ay uga baxeen jaamacado xataa kuwaan aqaanaa ku jira oo gobolkan aan joogo oo ilmahooda jaamacado ay ka baxeen reerahooda iska degan yihiin ayaga la joogaan noloshooda iska wata iska shaqaysanayay dadkaasoo kaleeto cabsi xoogan ayay ku haysaa waayo magaalo ama waddan aad joogto dhowr iyo 20 sano oo TPS-ka sanad walbaba lagu soo cusboonaysiinayay haddii hadda lagu dhahay lama cusboonaysiinayo haddana haddii hadda la dhahay ciidamo ayaa lagu sii daayay waddooyinka oo dadka inay qabqabtaan ayay suuragal tahay macnaha waa arrin xoogoo walwalkeeda leh gaar ahaan ha ugu sii badnaa dadka degan Minnesota maadaama gobolkaas hadda howlgalkii ugu badnaa madaxweynaha uu ciidamo ugu diray waayahay waxaynu arkaynaa mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa kale fariimo ay dirayaan iyo kuwa garyaqaanada ay leeyihiin albaabada ha ka furanina ha la hadlinina laakiin haddii ay haatan warran wataan albaabka ha ka furin waxa weeye way soo dhaaftay arrinta Soomaaliya shalay galab waxaa xusid mudan 5 sharci yaqaano ayaa waxay la kulmeen jaaliyadda Soomaalida maraan la hadlay mid kamid wuxuu ii sheegay
in jaaliyadda dadka aan ugu baaqayna ayuu yidhaahday in haddii loogu yimaado gurigaaga lagugu imaado kaba soo qaadba qof ayaa dulsaar kugu ahaa oo derbiga kasoo booday oo sharci haysan oo gurigaaga joogay qofkaasoo ciidamadu ay raadsanayaan hadday ku imaadaan runta ka sheeg hadduu bannaanka ku maqan yahay waa maqan yahay dheh hadduu qofkii ka baxay magaalada ama gobol kaleto u aaday ama waddan kale u aado adi uu kaa guuran waa iga guuray dheh wixii intaas ka soo hara adiga oo deegaan haysta rasmi ah ama sharci haysta haddii wax ka badan ay ku dhahaan magacaaga muxuu yahay hadday ku dhahaan iyo adresskaaga waa inaad dhahdaa ma xirnahay maya okay haddaana xirnayn ii sheega waxaad igu wareysanaysaan qareen ayaan u baahanahay ha iska warramin macnaha waxaa la diidaya in qofka waxaa la yiri inuu iska warramo oo macnaha uu information uu bixiyo fara badan kulama aad information fara badan bixisid kulama adiga wax ku sii khatar gelin kara ay noqon karto xataa adigoo sharci leh ha iska hadlin laakiin waxaa tirahdaa waxaan u baahanahay qareen ii doodi karo waayahay waa gartay dadka green cardka haysta ayaga ka war waa la mid dadka sharciyada deganaashiyaha waddankan haysto green cardka wuxuu ka mid yahay sharciyada dadku ay ku degan yihiin waddankan inta ay doonaan ay haysan jireen ilaa sharciga dhalashada ay ka qaataan dadka haba ugu badnaadaan 5 sano gudahood sharciga dhalashada ku xareeyaan waa sharci rasmiya qof haysto qofkii haysto green cardka oo wax dhibaato ah kama taagnaan jirin inta badan waa gartay dadka soomaalida aan la hadashay sharciga haysta ayagu dareen noocee ayay qabaan ma waxay ka baqeen ayagana in la joojiyo maadaama aan la kala garanaynin waxaan maqlaynaa dadkii oo sharciyadoodii jeebadaha ku wata ayagoo koobi ah arrintu halkaas ayay gaadhay ma sahlana sooma waa markii ugu horreysay abid oo qof kasta uu ka fekeraya hadda keliya maaha minnesota laakiin maraykanka isteedyadiisa kala gedisan oo dhan in aad ku qaadatid boorsadaada ama waladkaaga kaarka yariiskee la socdo baasaboorka ee muujinaya dhalashada inaad haysato ama baasaboorkaaga inaad qaadatid markii ugu horreysa ayaa dadkao dhan ay ka wada fikirayaan si siman waayo mar kastoo lagu qabto haddii qof ehel uu kaa daba keenin baasaboorka ama meeshii lagugu haayo aan lagugu imaanin waxaad khatar ugu geli kartaa in lagu geeyo detention center meelaha dadka lagu hayo oo hadhowdina suuragal ay tahay in lagaa qaadi karo marka dabcan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in walwalkooda ay aad uga sii badbadinayaan haddana laakiinse waa waxa dhici karo khatar intaasi la eg in qof sharcigii waddankan maraykanka ah leh ee khatar soo wajahda ah in la xiri karo ama la qaadi karo